بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay taariikhdu tahay 13-ka bisha 2019 waxaan duubaynaa sida loo joojiyo automatic update-ka Windows ku soo diro gaar ahaan Windows 10 ka ayaan fiirin doonaa insha Allah iyo sidoo kale sax tabaarka doonaa marka aad u baahan si degdeg ah ugu soo kaco computer-ka ayuu ku soo diray update waqti badan ka qaadanaya 10 daqiiqo 30 daqiiqo marka qaar marba ay hal saac uga taxtaa sida hadda u dhacday qoran oo kale isla ka fiirada fiiri ka ay soo kacay سأصير سواي وحاس كوضع معته لها مركم مرايين وتسعراي أيام السنة هذا مركا يصير وصوك عيا بقول كيف بقول يستعجل مستنى شكلهم في العالم برا مركا أوكي ما أفتح مركا وحاس وكورينا يعني هذا حتى قمت كايو مركبة ستقدر توصلها سبكين اسمه اوكي 7 كبار فرق استفوضي لا تقول صايا 7 كبار فرق ولا اسمه اندري باقي 7 كبار فرق اندري وكان كانت وبانا كانت تقدري طبعا تقدري system and security معناتها أعود السيستم أبيض بفكرة Windows update بفكرة هذا time automatic updating on or off هذا مثلا وضعته معنا أيوة صفر وضعي Windows 7 كوي هل كان معك الدوران يسمى never update laptop never update never check for updates ده نوع كبار هيسا بس كيف هو الواجس Windows 7 كا يعني كان حوالي واحد راعي سا دو ستيب horta marka hore setting markaan tagno settingskiisa fiiriyo misalan waxaa laga yaabaa ku aragto settingskiisa warkan waa kan update and security marka halkan hoos markaa tagto وكيل المساس احساس كلها change active hours view update history advanced options لا يا بوس نترا بوس updates مثلا بوس اساس لما لكن اوكي وحنتجي لما كورة services كنتجي سوف يا حنطة Windows key plus R أنا ما كتبت Windows key plus R ورايا مكان surfaces هذا نظام كان يعني كباري surfaces باكن اس اي قرايا صبح surface اوكي مكان تغير Windows update دولي طالو Windows update كل manual waayo waxaa dhici karta disable في Windows update كنت running waaye ku shaqeynaya soo marto waxaa ka dhigaysaa stop على right click stop dii kale double click and disable okay dii kale stop it سرعي disable it stop okay step labaad group posting oo ka dambaysa
isla ranta lafteeda wax ku qoraysaa ranteeda ku sheegayo waxaa ku qoraysaa windowskii ahaan ku qoraysaa gberit dot msc ku qoraysaa sorry comma maaha waa dot waaye inta ku qorto wuxuu saarayaa consolekan tegaysaa administrative templateska waxaa kasi tegaysaa windows componentska tan waxaa kasi tegaysaa windows update fiirinaysaa markaa kolkan configure automatic update ku dhufa loo jeer enable disable dato enable tirahdo waxaa ka dhigtaa notify for download and auto install hadii kale waxaa tirahdaa auto download and notify my control okay apply okay class waxaan waxaa lagu qorayaa gberit dot msc soo gasho group policy waxaa laga soo gaabshay group policy edit iskale intaasaan kusoo gabagabaynayaa insha allah waad ku mahadsantihiin daawashadiina